lixaad ayaan ku jirnaa oo aan kaga hadlaynay differentiation-ka. maanta waxaan qaadanaynaa haddii uu rabbi idmo cashirka shanaad ayaan qaadanaynaa. cashirka shanaad waxaa la yidhahdaa increasing and decreasing functions. marka fansaarada mataqaanaa increasingkooda iyo decreasingkooda ayaan qaadanaynaa. fansaarka marna wuxuu sameeyaa increasing oo dabcan sare ayuu u kacaa, marna hoos ayuu usoo dhacaa, marka decreasing ayuu sameeyaa. marka intervalada uu fansaarka ku noqon karo decreasing ama uu ku noqon karo increasing ayaan fiirinaynaa inagoo isticmaalayna dabcan first derivative order-kii ama derivative-ka koowaad anagoo isticmaalayna. marka cashirkan marka aan dhammayno kadib waxaan rajaynaynaa arday walba oo ardaydeena ka mid ah inuu awood u yeesho inuu mataqaanaa raadin karo halka fansaarka uu ka yahay increasing ama intervalada uu increasingka ka samaynayo iyo kuwa uu decreasing ka samaynayo. sidoo kale waxaan rajaynaynaa ardayga inuu mataqaanaa heli karo concave upward-ka iyo concave downward-ka. sidoo kale waxaan kaloo rajaynaynaa intervalada concave-yada ay upward ku noqon karaan concave-ka ama uu ku noqon karo downward ayaan rajaynaynaa haddii uu rabbi idmo. marka cashirka haddii aan hore usii galno, marka we determine the interval of increase and decrease of each of the following marka functions. fansaaradan halkaa inoo yaala mid kastoo ka mid ah waxaan helin karnaa increasingka ama intervalka uu increasingka ku samaynayo iyo kuwa uu decreasing ku sameeyo. marka aad graphiskan u fiirsato, marka graafkan hore mataqaanaa wuxuu tilmaamayaa function sameynaya increasing functionka wuxuu sameyn karaa marka uu slope-kiisa positive yahay ama first derivative marka ay tahay positive. marka fansaarkan kalena waxaan arkaynaa down ayuu hoos ayuu usoo dhacaya, marka isana wuxuu sameynayaa decreasing ayuu sameynaya. marka fansaarka isagana waa decreasing. marka uu decreasing sameynayaan macnaheedu waxa waaye slope-ka ayaa wuxuu yahay negative, ama si kale haddaan u dhigno gradient-iga ama first derivative-ka ayaa less than 0 ah ama 0 ka yar. marka okay, it can be seen from the graph that the function g of x increase. haddii aan graafkii hadda ku laabano waxaan arkaynaa fansaarka g of x inuu sameynayo increasing ayaan arkaynaa. marka as the value of x increases, markasta qiimaha x uu mataqaanaa increase sameynayo ama uu hore u soconayo ama uu kobcayo, waxaan arkaynaa graafka g of x-na isagana increasing ayuu sameynaya. marka we say that marka halkan waxaan odhanaynaa y oo like g of x in an increasing function ayaan leenahay for all real values of x. marka qiimo kasta oo real number oo x qaato increase ayuu ku sameynaya. marka the function g of x ee kii labaad ahaa isna waa decreases, marka hoos ayuu u socdaa. marka as the value of x increases, qiimaha x waa kobcayaan laakiin graafkii down hoos ayuu usii socdaa. marka we say that marka waxaan odhanaynaa marka h of x is decreasing function weeyaane for all real values of x. marka consider the graph. marka graphiskii hadda dib ugu laabo marka iyo kuwa inoo soo socdaba sidaa ay aad inoogu sheegi doonaan. marka from the diagram above, marka sawirkan halkaa inoogu qoran hadeerto waxaan arkaynaa functionka qaybtan hore dabcan waa cubic function sawirkii waaye. halkan waxaan arkaynaa fansaarka increasing uu sameynaa markuu bartaa gaaro, marka haddana wuxuu markale soo sameynaa decreasing ilaa uu halkaa yimaado. haddana kadib marka uu bartaa yimaado nagaashaha ah ayuu haddana mar kale increasing sameynaya. marka sidaasaan arkaynaa. okay, from the diagram above, marka sawirka halkan aan hadda aragnay it can be seen that waxaan arki karnaa the function y equals f of x may increase, marka inuu sameynayo increasing in one interval and decrease in another interval. marka halkii sawir ayaa wuxuu sameyn karaa qayb ka midana interval ka midana inuu increase noqdo, interval kalena decrease noqdo sida inuu muuqatayba. marka for x less than a f of x increases. markii dabcan negative value x noqdo oo ka yaraado dabcan, marka waxaan arkaynaa functionka inuu increase sameynayo oo qaybtan hore ah. qaybtaas functionka inuu increase sameynayo aan arkaynaa. marka as the value of x increases, marka halkaas marka for qaybta dambana waxaan arkaynaa oo markuu halkan gaaro wixii ka dambeeya ah halkan waxaan arkaynaa x waxay ka weyn tahay a.
marka markasta x ay ka weynaatana halka qaybta labaad weeyaan waxaan arkaynaa f of x decreases as the value x increases qiimaha x na waa hor u socdaa functionkeygana waxa ku dhacaya degrees ayaa ku dhacaya marka okay let y equals f of x be continuous the function and it is differentiable in the interval marka aan hadda isaga qaadano y inay loola mid tahay f of x ayna tahay function continuous ah sidoo kale la derive gareyn karo marka la joogo intervalkaas sidaas aan u qaadano marka okay xeerarkana marka u fiirinayna marka haddii first derivative ay 0 ka weynaato marka for all value x belongs to this interval a comma b marka qiimaha x oo dhan hadii lagu bedesho oo mataqaana first derivative kayga positive ay noqoto oo qiimo plus uu soo baxo marka maxaa la yiri then function is increasing in the interval marka fansaarka halkaas wuxuu ka noqonayaa increasing ayuu ka noqonayaa marka if marka hadii dhanka kale derivative or first derivative ay noqoto marka negative less than 0 means negative value marka haday negative noqotana then f of x decreasing marka f of x kayga ama fansaarkayga wuxuu ka sameeynaa degrees ayuu ka sameeynaa intervalkaas marka ay mataqaana xigsintu ka yartahay eber ka yartahay marka the signs of gradient of the curve marka slope-ka sumadaha uu qaadanayo for which the function is increasing or decreasing for certain interval marka ahmiyad ayuu marka ama ku fadhinaya interval gaar ah markii la joogo markaas example kan waxa la ina leeyahay determine the interval of increase and decrease for each of the following functions fansaaradan la ina siiyey waxaa la inaga rabaa intervalada ay increasing ku yihiin ama decreasing ku yihiin haddii aan fansaarka hore ku hormarno waxaan haysanaa f of x dabcan inuu la mid yahay x square minus 8x ayaan haysanaa marka waxaan sameynaynaa marka hore inaan derive gareyno nidhaaho f prime of x marka aan derive gareyno marka waxay noqonaysaa 2x minus 8 ayay noqonaysaa marka aan derive gareyno marka waxaan ogaanay markii la derive gareeyo haddii derivative functionkaaga uu positive noqdana marka increasing weeyaan hadduu negative noqdana waa decreasing marka waxaan xaaladda ogaan karaa markaan qiimaha x garanayo qiimaha x si aan u garto marka waxaa ii soo baxay ama derivative-kayga ayaan 0 leekiisina waxaan leeyahay 2x minus 8 equal to 0 marka haddii aan 8 ka wareejiyo wuxuu ii noqonayaa 2x equal 8 marka haddii aan labada dhinac 2 u qaybiyana x equal 4 marka x wuxuu ila mid noqday hadda 4 kadibna waxaan samaysanayaa mataqaana line chartigii ayaan samaysanayaa numberkan 4 ayaan dhexdaa dhiganayaa halkan negative infinite aan leeyahay halkanna positive infinite ayaan leeyahay markaas ama infinite ayaan leeyahay waxaan sameynayaa marka number oo ka yar mataqaanaa 4 ayaan halkaas ka qaadanayaa dabcan numberkaas ayaan first derivative-kayga ku bedelaa calaamadaas aan u ogaado marka numberkaas haddii aan u qaato inuu yahay 3 marka aan 3 qaato halkaan ku bedelo marka qaybtan haddaan ku bedelo waxay ii noqonaysaa 3 times 2 times 3 minus 8 ayay ii noqonaysaa marka 6 haddii laga jaro 8 minus 2 aa soo baxay marka negative ay noqoto halkan marka waxaan aqaan calaamadda meeshaas inay noqonayso negative marka halkan number mataqaanaa midigta ka jira 4 ama ka weyn bal tijaabi isagana haddii aan 4 number ka weyn qaato oo aan idhaahdo dabcan 5 haddaan qaato 2 times 5 minus 8 haddaan idhaahdo halkan waxaa ka soo baxaya dabcan 10 markii laga jaro 8 na waa 2 oo positive ah halkanna waxaa ka soo baxa plus marka intervalada hadda waan fahmi karaa intervalka afar ilaa iyo infinite intervalkaas wuxuu noqonayaa functionka maadaama first derivative-ka uu positive yahay increasing ayuu noqonayaa marka negative infinite up to 4 na wuxuu noqonayaa markaas isna decreasing marka therefore the function increases functionka wuxuu increasing ka sameynayaa intervalka 4 up to infinite sidoo kale functionka decreases
oo degree isaga markaa okay negative infinite up to 4 marka halkaas qaybta A ayaa inoogu dhamaatay marka waxaana soo ogaanay intervalada uu ku sameynayo fansaarkan degreeska iyo kuwa uu ku sameynayo maxay increase-ka qaabka ayaanu ogaan karnaa oo dabcan qaab inoo fudud ah marka okay marka kan B aan u gudubno ama qaybta labaad iyana aan u gudubno marka qaybta labaad iyana waxaan haysanaa g of x inuu la mid yahay x plus 1 times okay all square times x minus 3 sidaas ayaan haysanaa marka hore marka waa derive garaynaynaa functionkan waxaan leenahay g prime of x wuxuu la mid yahay marka labo fansaar oo isku dhufsan waaye kan markaan derive garaynayno kan labaad inoo soo guuri waa x minus 3 kan hore derive garay marka wuxuu noqonayaa isaga 2 okay into x plus 1 to the power of 1 marka markii aan powerka hal ka jarno dabcan inta gudaha haddii aan derive garayo hadda 1 unbaa kasoo baxay 1na isaga waxba ma bedelaya marka plus marka kan labaad isaga iisoo guuri x plus 1 ama kan hore iisoo guuri square kan dambe derive garay dabcan haddaan derive garayo isaga waxaa kasoo baxaya oo keliya ama mar walba waxaa kasoo baxaya 1 ayaa kasoo baxaya marka okay marka intaan haddii aan sii wado waxaan arkaynaa marka qaybtan baartigan hore iyo baartigan dambe waxay wadaagaan x plus 1 marka x plus 1 marka as a common factor banaanka waan u dhigan karnaa marka inta markaan u qaybino waxaa kusoo haraya waxaa ku haraya 2 into x minus 3 ayaa ku haraya qaybtaas okay marka aan qaybta tan u qaybinana mid ayaa ka haraysa ayadana plus ay noqonaysaa x plus 1 haddii aan derivative marka iska sii fududeeyo markaas x plus 1 into 2x okay minus 6 plus x plus 1 haddii aan sii wadno x plus 1 times qaybtan gudaha ku jirtahay dabcan labada x isku darmayaan 3x minus 5 ayay noqonaysaa marka sidaa ayaa derivative-keyga uu ii noqonaya marka ii soo baxda marka okay markaan zero la ekaysiino marka haddii aan zero la ekaysiino maxay noqonaysaa x plus 1 derive garanti wixii inooga soo baxay ayaan zero la ekaysiinayna si aan x values kusoo helno marka waxayna inoo sheegi doontaa x values markaan soo helno dabcan kan hore wuxuu noqonayaa x plus 1 equal 0 or 3x minus 5 equal 0 qaybtan x wuxuu noqonayaa minus 1 or qaybtana x wuxuu noqonayaa 5 over 3 ayuu noqonayaa isagana marka labadaas ayaa ii soo baxday ama labada qiimo ayaa ii soo baxay marka halkaas waxaan haystaa derivative key oo ah g prime of x oo aan soo gaaray inuu la mid yahay okay x plus 1 okay oo ku dhufsan maxay 3x minus 5 marka mar walba calaamadaha ayaan iska eegaynaa halkaas marka intaas ayaan soo helnay iyo qiimooyinkii x marka waxaa laga rabaa intervalka uu fansaarkayga increase ku noqon karo iyo kuwa uu decrease ku noqon karo marka haddii aan ku laabto oo aan diyaarsado line chartigayga haddii aan diyaarsado negative infinite to positive infinite labadii nambaro aan soo helana aan halkaan dhigto negative 1 5 over 3 marka nambaradeyna halkaas aan dhigto markaa dabcan haddii aan qaato number ka yar negative 2 haddaan qaato maxaa ii soo baxaya negative 2 haddaan qaato halkaan waxay ii noqonaysaa negative 1 markaan negative 2 qaato halkaan negative 2 markaan kan ku dhufto waxay noqonaysaa negative 6 negative 5 dabcan qaybtan hore negative ka soo bixi doona qaybta dambena negative way negative marka negative lagu dhuftana positive weeyaan halkaas marka waxaan ogaanayaa halkan plus ayaa ka soo bixi doona first derivative kayga plus ku noqon doona marka
haddii aan qaato number u dhaxeeya labadan number dabcan 0 haddaan iska qaato x plus 1 ayaan halkaa haystaaye haddaan 0 qaato maxaa dhacaya number u dhaxeeya dabcan 0 weeyaane haddaan 0 qaato oo aan halkan ku bedelo 0 halkan waxaa kasoo baxaya positive 1 okay inta markaan 0 qaato ayadana minus 5 ayaa kasoo baxay labadan markii la isku dhufto tira minus soo socoto dhexdaa waxay ii noqonaysaa minus ayay ii noqonaysaa markaa haddii aan qaato meesha qaybta ugu dambaysa haddaan qaato number mataqaanaa ka weyn numberka aan haddaysto 2 matalan haddii aan qaato halkan meel kastoo x haddii aan 2 ku bedesho calaamada aanu raadinaya 2 plus 1 okay 3 times 2 6 minus 5 dabcan halkan waxaa kasoo baxaya 3 oo positive ah halkan waxaa kasoo baxaya 1 oo isna positive ah positive haddii positive lagu dhiftana positive ayaa halkaas ay noqonaysaa markaa hadda waxaan ogaanayaa intervalka u dhaxeeya negative infinite up to negative 1 increase weeyaan inta u dhaxaysa negative 1 iyo 3 5 over 3 degrees weeyaan marka intervalka haddana ka bilaabanaya 5 over 3 ilaa positive infinite isna waa degree increase weeyaan marka aan increase ka yiraahdo marka increase in intervals intervalada uu functionkayga increasing ka sameynayo waa negative infinite to 1 and okay 5 over 3 up to infinite labadaas wuxuu ka sameynayaa increase degrees wuxuu ka sameynayaa functionkayga negative 1 to 3 over 5 marka la joogo intaasna wuxuu ka sameynayaa leenahay degrees ayuu ka sameynayaa ayaan leenahay markaa halkaas aan uga gudubno tusaalahaas marka the relationship between the sign of double derivative or second derivative and the concavity concavity-ga iyo xiriirka ka dhaxeeya calaamada uu qaadanaya ama sumada marka ayaa halkan ku baranaynaa marka waa ay fududahay qaybta tan marka haddii functionkayga uu markaas calaamadiisa ama second derivative-ka haddii uu positive noqdo waxaa loo yaqaanaa waa concave upward ayaa la yiraahdaa haddii second derivative-ka uu negative noqdona concave down ayaa iyana la yiraahdaa marka sidaas ayay kala noqonayaan kirfiyada markaas okay haddii aan halkan fiirino marka test for concavity marka halkan waxaan ku haysanaa haddii second derivative-kayga uu greater than 0 positive laga wada uu positive noqdo then the function is concave upward ayaan leenahay in the interval marka haddii uu double derivative-kayga ama second derivative-kayga uu negative noqdana marka waxaan leenahay iyadana waa concave downwards in the interval marka sidaas ayaan iyadana leenahay marka halkan waxaan ku haysanaa function waxaa la ina yiri marka waxaad soo cadaysaa ama intervalada uu concave upward-ka ku yahay iyo kuwa uu concave downward-ka ku yahay marka si aan u ogaan karna intervaladaas marka hore functionka ayaan xalinaynaa marka okay marka hore first derivative aan sameynaynaa oo waxaan leenahay okay waxaan leenahay y prime oo first derivative ah hadii aan sameyno dabcan waxaan isticmaalaynaa product rule kan hore ayaan soo qaadanaynaa ama hooseeyaha marka waxaan ku dhufanaynaa koreeyo oo aan derive gareyno 1 ah minus aan leenahay koreeyaha soo qaadanaynaa hooseeyaha oo aan derive gareynaan ku dhufanaynaa marka waxaan u qaybinaynaa hooseeyaha oo aan laba jibaarno markaas okay marka intaas aan sameyno marka waxaa ii soo baxaya hadii aan iska soo koobno first derivative-kayga minus okay x square plus 1 divided by x square minus 1 all square marka haddii aan second derivative-ka u gudubnana second derivative sharciga hadda ayaan ku dabaqaynaa double prime ayaan leenahay hooseeyaan qaadanaynaa koreeyaha la derive gareyaan ku dhufanaynaa koreeyahan qaadanaynaa hooseeyaha la derive gareyaan ku dhufanaynaa hooseeyaha ayaan laba jibaaraynaa markaas marka haddii aan intaas sameyno waxay u muuqanaysaa in marka ay noqonayso markaas okay
x square minus 1 all squared into minus 2x oo markaan derive garayna haddii aan derive garaynta hore un ka samayno okay plus 4x into x square minus 1 okay x squared plus 1 divided by x square minus 1 all power 4 marka haddii aan reduce garayno waa samayn karnaa haddii aan barteeda ku daynana waa samayn karnaa marka halkaas ayaa waxaan ku haysanaa iyadana second derivative-kayga marka si aan x soo helo marka second derivative-kan aan soo helnay ayaan 0 la ekaysiinaynaa sida kii hore aan first derivative-ka 0 la ekaysiinayna marka haddii aan sii yarayno dabcan x square minus 1 ayaan hal la bixin karnaa meeshaas marka waxay ii noqonaysaa second derivative-kayga inay ii soo saarto ama ii soo baxdo okay 2x into x square plus 3 divided by x square minus 1 all squared marka sidaas ayay ii noqonaysaa ama halkaan aan cube gareeyo maadaama hal xaba aan la saarnay qaybtaas cubic okay aan dhihi karaa 2x times x square plus 3 times x minus 1 divided by x square minus 1 ay raadi meesha divided by x squared minus 1 to the power of 4 equal to 0 marka intaas ayaan 0 la ekaysiinayaa marka waxaa ii soo baxaya 2 haddii aan cross multiplication sameyno qaybta halkaas ku dhici doontaa qaybta tanna 1 hoose ku dhici doontaa marka 2x times x squared plus 3 times x squared minus 1 equal to 0 ayaan leenahay intaas ayaan marka 0 la ekaysiinaynaa si aan x value marka u soo helno marka haddii aan intaas sii xallino x wuxuu ii noqon doonaa markaas 0 x wuxuu ii noqon doonaa marka 0 sidoo kale wuxuu ii noqon doonaa x plus or minus x equal 0 or x equal plus or minus 1 qaybtan dhexe iyada waa ka tegaynaa sababtaan uga tegayna waxay tahay markaan 0 la ekaysiino imaginary ayay ina siinaysaa marka imaginary numberna qaadan mayno marka intaasaan qaymooyinkaas kale ayaan qaadanaynaa therefore waxaan samaynaynaa xariiqdii dheereed ayaan samaysanaynaa marka ama diyaarsanaynaa markaas okay nambaradaan ii soo baxay ayaan ku qoranaynaa marka minus 1 okay 0 iyo 1 marka saddexdii number ayaan ku qoranaynaa waxaana ku laabanaynaa marka second derivative keena ayaan ku laabanaynaa marka hore waxaan qaadanaynaa number ka weyn ama ka yar ay raadeen minus 2 dabcan halkan waxaa jirta infinite positive halkaana infinite oo negative marka tan waa negative midda dambena waa positive marka haddii aan numberkaas qaadano dabcan aan ku bedelno functionkan minus 2 oo kale haddaan ku bedelno oo aan halkaa ku tijaabino marka minus 2 markii lagu dhuftaahi 2 minus 4 ay noqonaysaa halkaas okay minus 2 markii la isku wargarayaa balaas weeyaan markii lagu daro halkan 7 ay noqonaysaa okay qaybta hoose halkan markii minus 2 lagu bedelo la isku wargarayo 4 ay noqonaysaa 4 markii 1 laga jarana waa 3 oo positive ah dabcan hoosna positive ah kasoo baxay marka positive iyo minus haddii la isu qaybiyo halkan waxaa imaanaya negative ayaa imaanaysa marka haddii aan qaato 0 iyo number u dhaxeeya minus 1 dabcan 0.5 haddii aan qaato halkan wuxuu ii keeni doonaa plus halkaana minus uu keeni doonaa halkaana plus uu keeni doonaa marka waxaan arki karaa marka halkan la joogo waa down to haddana kor u aada marka meeshas wuxuu noqon doonaa intervalka ah inta u dhaxaysa minus 1 iyo 0 wuxuu noqon doonaa concave upward marka kor u furmi doonaa intervalka ah marka positive to negative markaas positive to negative kan ah isagana concave downward ayuu noqon doonaa isagana marka concave downward ayuu noqon doonaa marka haddii aan soo koobno markaas halka waxaan leenahay okay marka waxaan arkaynaa
marka la joogo negative infinite to minus 1 marka la joogo minus aan haysanaa marka halkaas minus weeyaan marka negative infinite okay to minus 1 aan okay halka minus kala aan haysanahay waa 0 ilaa iyo 1 marka ayadana minus aan haynaa marka waxaan leenahay waa 0 and 1 meeshaasna minus aan haysanaa r intervaladaas waxay noqonayaan are concave downward intervaladaas markaa concave downward ay noqonayaan haddii aan kuwa balaaska u fiirsanana minus 1 0 and positive ka haddaan u fiirsano 1 up to infinite iyagana maxay noqonayaan concave upward ayay noqonayaan marka halkaas marka haddii second derivative-ka uu keeno negative waa concave downward haddii uu positive keenana waa concave upward marka darsigan kan xiga ilaa aan gaarayno waxaan idinkaga tagay